iga raali noqo waan ku salaamay hal daqiiqo ma kula hadli karaa waa arrin muhiim ah caawimo ayaan kaaga baahannahay bal sawir adiga oo ku safraya hawada sare waxaad raadinaysaa noole caqli leh oo halkaas jooga muddo ayaad safarka ku jirtay sababtoo ah hawada sare waa mid aad u ballaaran waxaad intii aad soo socotay aragtay malaayiin meerayaal ah oo aan gebi ahaanba wax nolol ahi ka jirin intaa kadib waxaad arkaysaa dhulkan oo ah jasiirad aad u yar oo ka mid ah hawada sare dhibic yar oo biyo dhagax iyo carro ah oo ay ku daboolan tahay hawo yar oo aan neefsan karno waa laga yaabaa inay nolol ka jirto hawada sare laakiin halkan oo dhulka ah meel walba waa ay ka jirtaa beriga biyaha hawada dhir cayayaano shimbiro kalluun iyo nooc kasta oo noole ah ayaa jooga qaar waa ay quruxsan yihiin qaarkood runta haddii la sheego waa cajiib iyo dad aad u fara badan sida adiga iyo aniga oo kale waa taqaanaa dad quruxsan ilaa xad caqli leh aadanaha waxba kama duwana noolayaasha kale ee dhulka jooga waxaan ku bilaabanaa abuur aad u yar oo marka aan helno xaaladaha aan u baahannahay waan koraynaa waana weynaanaynaa si aan intaasoo dhan u marno waxaan u baahannahay waxyaabo aasaasi ah oo aanan ahayn telefoonno mobile ah dhar cusub iyo weliba kumbiyuutarro laakiin waxaan u baahannahay biyo nadiif ah hawo nadiif ah iyo cunto caafimaad leh haddii aan kuwaas helin waqti badan ma sii joogayno cagta aan haysanno inta ay doontaba ha ahaatee warka wanaagsanise waxa uu yahay in dhulka ay yaallaan wax inagu filan dhammaanteen oo ah waxyaabahaas aan u baahannahay warka aan fiicnayna waa inay jiraan xoogaa dhibaatooyin ah oo inaga hortaagan waxyaabahaas aan u baahannahay tan ugu horraysa waa isbeddelka cimilada qaabka ay hadda dadku ugu nool yihiin dhulka ayaa dhibaataynaysa waxyaabaha aan ugu baahannahay nolosheenna shidaalka aan gubna ayaa buuxiya hawada atmosfeerka waxaa gabaabsi nagu ah biyo nadiif ah oo la cabo dhammaan waxyaabahaas waxa ay beddelayaan jawiga waxaase jirta dhibaato taas ka sii weyn arrinta labaad waa sinaan la'aan qaar ka mid ah dadka dhulka jooga ayaa haysta wax aad uga badan inta ay u baahan yihiin oo dadka badigoodna ma haystaan wax u dhow inta ay u baahan yihiin tani waxa ay sababi kartaa saboolnimo aanan xaq ahayn malaayiin qof ayaan awoodin inay helaan daawo ay kaga badbaadaan cudurrada ama xitaa ay iskaga daweeyaan haddii ay bukoodaan meelaha qaar carruurta waxa ay ka cawdaan inay ku qasban yihiin inay iskuul tagaan malaayiin kale oo carruur ah aysan suuragal u ahayn inay gebi ahaan iskuul helaan si xaq ma tahay tuse waxa ay tahay annaga ayaa sababayna dhibaatooyinkan oo dhan sidaa daraaddeedna waa kuwo aan sidoo kale xallin karno waa haddii aan ka wada shaqayno dhammaanteen oo aan noqonno kuwo ka hal abuur wanaagsan sida aan hadda nahay aan sharxo waxaan uga jeedo si aad ka fakarto dhammaan noolaha waxa ay leeyihiin awoodo waaweyn biruhu waa ay duuli karaan laakiin annaga ma duuli karno biyuhu waxa ay urin karaan waxyaabo aynaan annagu urin karin taasina ma aha wax xun waxa ay qaataan neefo aanan neefsan karin waxaana ay u rogaan hawo aan neefsan karno in aadanuhu waxa ay leeyihiin awood aan unka kale lahayn waxaan nahay noolaha ugu hal abuurka wanaagsan ee abid la arkay madayna waxaa ka buuxa fikrado oo waxaan ku wanaagsannahay inaan samayno waxyaabo kala duwan daasna waa waxaan horeyba ugu beddelaynay dunida marar aad u badan waxaana aan ku xallinaynay kumanaan dhibaato daraaddeedna mar kalena waan yeeli karnaa siib wanaag qorshe ayaan haysannaa waana qorshe ku guulaysan kara keliya haddii aad gacan ka geysato waxaa dunida ka jira urur matala dadweynaha 193 dal waxaana gebi ahaanba ururkaas ka go'an inaan ku noolaanno nabad oo aan wada shaqayno waana maqashay warkiisa waa qaramada midoobay waxa ay goordhow ku dhawaaqeen yoolalka caalamiga ah ee horumarka joogtada ah kuwani waa 17 yool oo caalamka looga ilaalinayo isbeddelka cimilada oo dunida lagaga dhigayo mid ugu amniga wanaagsan u xaqnimo badan u cadaalad wanaagsan qof walba waa inaan xaqiijinaa yoolalka wixii loo gaaro 2030 in aan qorshe haysano waxa ay ku wanaagsan tahay waa inaan eegi karno sida ay hawsheennu u socoto
waan isu hambalyeyn karnaa haddii ay hawsheennu wanaagsan tahay oo dadaal dheeri ah ayaan bixin karnaa haddii aanay wanaagsanayn. 2030 sidaa inoogama foga. sidaa daraaddeed waxaan u baahan doonnaa inaan isku dhiirigelinno fikrado aad u badan. waxaan ku bilaabi doonnaa annaga oo yoolalkan ka dhigayna kuwa caan ah oo la wada garanayo. sidaa daraaddeed soo ogow waxa ay yihiin yoolalkaas oo u sheeg qof kasta oo weydii qof kasta inuu u sheego qof kasta oo kale. intaa kadib middan soo socota ayaa ah tan xamaasadda leh. ka fikir inay jiraan waxyaabo aad samayn karto oo aad dhab ahaan gacan ka geysan karto yoolalkan. haddii aanan ku cayaarin cuntada, biyaha ama korontada, taasi waxay gacan ka geysanaysaa ilaalinta caalamka. haddii aan dhammaanteen taageerno u hadalno dadka aan si xaqa loola dhaqmaynin, iyo haddii aan ixtiraamno xuquuqaha aadanaha ee qof kasta, taasi waxay kordhin kartaa wanaag badan. wadarta yoolalka waa 17 yool. sidaa daraaddeed waxaa jira siyaabo badan oo aad gacan uga geysan karto. si gaar ah dhammaanteen waxaan u baahannahay fikrado cusub iyo siyaabo cusub oo wax loo sameeyo. bal ka waran haddii in aad gabar ama wiil tahay aanay isbeddel ku keenaynin amniga iyo badqabka aad dareemayso, saaxiibbada aad leedahay ama goobaha aad aadi karto. ka waran haddii aan helno siyaabo cusub oo biyaha loo nadiifin karo oo looga dhigi karo kuwa la cabbi karo. bal ka waran haddii aan dib u isticmaali karno dhammaan wasaqdeenna. maxaa kale ayaad u malaynaysaa inaan samayn karno? dhammaanteen waxaan ku noolnahay dhulka, waxaanay nolosheennu ku xiran tahay dhulka. waxaan leenahay dhaqamo badan oo kala duwan, laakiin caalam keliya ayaa naga wada dhexeeya. haddii aan daryeelno dhulka iyo dadkeenna oo aan waxa aan haysanno si xaq ah oo la joogtayn karo aan u wadaagno, wax kastoo aan u baahannahay halkan ayaa ay yaallaan. waxaa laga yaabaa in maalin uun aan helno meerayaal kale oo noole caqli lihi uu ku nool yahay. inta taas laga gaarayo aan ka fakarno sida uu caqligeennu uga shaqaysiin karo halkan oo ah dhulkeenna. waa fikir igu soo dhacay un.